kooxda Manchester United ayaa hal tilaabo u jirsatay saxiixa Jadon Sancho oo ahaa bartilmaameedka ugu weynaa kooxda labada xagaa ee la soo dhaafay. xidigan ayaa ku dhawaalay xil ciyaareedka hore inuu noqdo ciyaaryahan Man United ah kadib isfahan dhex maray wakiilka xidigan iyo Man United, balse heshiiskan ayaa burburay maalmihii ugu dambeeyay ee suuqa kadib markii labada koox isku fahmi waayeen qiimaha xidigan. kooxda Dortmund ayaa ku doonaysay Jadon Sancho adduun dhan 120 milyan, taas oo caqabad ku noqotay kooxda Manchester United. waliba BVB ayaa dalbatay in 100 milyan si cash ah loo bixiyo, taasoo keentay in United ay sugto saxiixa daa'irka mustaqbalka ku leh kubadda cagta sanad kale oo dheeraad ah. Man United ayaa laga soo diiday toddobaadkii hore dalab gaaraya 75 milyan oo gini oo u dhigantay 87 milyan oo euro oo ay ka gudbisay xidigan, balse kooxda lagu naanayso BVB ayaa dalbatay 78 milyan oo gini oo u dhigantay 90 milyan oo euro. wadahadallada ayaana si fiican u socday maalmihii ugu dambeeyay. wararkii ugu dambeeyay ayaa haatan sheegaya in Man United ay ka gudbisay dalab dhan 77 milyan oo gini oo ah qiimaha saxda ah ee Dortmund ku doonaysay xidigan. sida laga soo xigtay wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee Bild, kooxda lagu naanaysay BVB ayaa haatan aqbali doonta dalabkii saddexaad ee Man United ka soo gudbisa xidigan, waxaana lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo heshiiskan dheeraaday maalmaha soo socda. heshiiska 77 milyan ayaa xidigan ka dhigi doona ciyaaryahanka saddexaad ee ugu qaalisan Premier League kadib Maguire iyo Pogba. United ayaa xidigan raadinaysa muddo dheer iyadoo Ole uu sheegay xagaagii hore inuu yahay bartilmaameedkiisa ugu weyn. Sancho ayaa ahaa xidig si sare ugu dhex muuqday horyaalka Jarmalka saddexdii xil ciyaareed ee la soo dhaafay, isagoo ku lug yeeshay 102 gool 125 kulan oo u saftay kooxda Dortmund. Sancho ayaa u soo weecan doona kooxda Man United isagoo saxiixay heshiis gaaraya ilaa 2026. haatan waxaa sugnaaba waa dhamaystirka heshiiska oo la filayo in la dhameeyo ka hor maalinta Isniinta oo reer galbeedku ah maalin shaqo. xidigii ugu dambeeyay ee Man United ee si wanaagsan ugu raaxaysta garabka midig ee weerar wuxuu ahaa xidiga reer Portugal ee Luis Nani. sidaas la mid ah waxaan u rajaynaynaa Sancho inuu la qabsan doono kooxda Man United iyo horyaalka Premier League misna uu daboolo baahida fog ee ka jirtay garabka midig ee weerarka. nasiib wacan.